Assalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire, isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa 4 scholarship oo fully funded ah ama 4 minxo oo taam ah oo dhammaantood xirmaya bishan aynu ku jirnay ee February. Haddaba qalinkaaga iyo buuggaaga soo qaado oo note-ka fursadahan qoro oo aysan ku dhaafin. Sidoo kale haddii aad channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe, share, like si aysan ku dhaafin fursadaha full scholarship-ka ee aan bil kasto soo gelin doono. waa tahay scholarshipka koowaad waxaa bixinaya Brunei wadanka la yiraahdo. Brunei waa wadan yar oo ku yaala South China Sea ama daris la ah wadamada Malaysia iyo Indonesia. Scholarshipkan waxaa la siinayaa dadka doonaya inay helaan diploma, undergraduate, heerka koowaad jaamacadda iyo master. haddii aan hoos sii eegno sidaan inii sheegay, Brunei ayaa scholarshipkan bixinaya, wasaaradda arrimaha dibadda ayaan fangaraynaysa. 5 jaamacadood oo ku yaala wadankaas Brunei ayaa midkood ka helaysaa waxbarashada laga bixinaya oo adaguna ka dhiganaysa 5 jaamacadood midood. 3 level baad midkood baranaysaa haddii Ilaahay idmo. Faa'iidooyinkiisa haddii aan fiirino waxa weeye wax lacag ma bixinaysid, ticket baa laga bixinaya sidoo kale. waxa lagu siinayaa bishii $500 lacagta Brunei dollar u dhiganta oo adigu $370 u dhiganta. lacag sidoo kale cuntada isaga bixisid, book allowance, waxyaabaha buugta iyo materialka jaamacadda aad ku iibsan lahayd, accommodation oo ah deegaankii dormitory oo kale meesha aad degi lahayd, health insurance baa sidoo kale helaysaa ama caafimaad. yaa xareyn kara marka international students oo waxa way scholarshipkan xareyn kara waxa weeye inuu qofku ka yar yahay ama inuu u dhaxeeyo 18 ilaa 25 haddii uu xareynayo undergraduate iyo diploma, sidoo kale inuu ka yar yahay 31 haddii uu xareynayo masters. sidee u xareynaysaa? Applicationku waa online, qaab online u soo xareynaysaa. waa inaad soo degsatid marka hore formka oo aan mar dhow inuu tusi doono. formkaas ayaad buuxinaysaa, kadibna waxaad u diraysaa emailka hoos ku xisan. waxaad sidoo kale ku sheegaysaa first choice-kaaga iyo second choice-kaaga jaamacadahaas ay kugu kala yihiin first iyo second. marka waxaa akhrinaya ama isha marinaya documentigaaga wasaaradda arrimaha dibadda, iyada ayaana go'aaminaysa inuu qofkaas scholarship helayo in kale. waa inaad sidoo kale bixisid clearance statement, waa inaad national agency-ga yani laamaha amniga waddankaaga ka soo qaadato warqad caddaynaysa inaadan dambiile ahayn. application-ka oo dhammaystiran, warqaddii aad buuxisay oo dhammaystiran baa kadib emailkan u diraysaa. waa inuu ka yaraado 10 megabyte. dokumentiyada kale oo aad ku taageeraysid faylkaagana waa inay Word ama PDF ama JPEG ahaadaan. waxaa taas ka duwan ama dheeri ah qofka xareynaya jaamacadda Brunei Darussalam inuu isagana sameeyo website-ka jaamacadda uu toos u xareeyo. jaamacadaha kale kuwaan ayaa kugu filan, laakiin jaamacadda Brunei Darussalam hadda xareynaysid waa inaad website-keeda soo martid. marka official linkiga haddii aynu fiirinana waa kana. linkiyada officialka ah ama rasmiga ah waxaan ku reebi doonaa videoga hoostiisa. wasaaradda arrimaha dibadda sida halkan ka aragtaan ayaa scholarshipkan soo dhigtay. sidii aan inii sheego kuwa jaamacadii xaga ka muuqda dadka xareyn karaya waxa weeye wadamada ASEAN la isku yiraahdo, wadamo gobolkaas, iyo OIC oo ah Organization of Islamic Countries. marka Soomaaliya member bay ka tahay OIC-da, marka sidaa darteed way xareyn kartaa. shuruudahan akhri oo isha mari kulli wax faa'iidooyinka ay helaysid, waxyaabaha lagaaga rabo kulli halkaan ay ku cad yihiin. runtii aad buu sahal u yahay. application formka inii sheegayo oo la buuxinayna waa kana. marka application-kan ayaad buuxinaysaa choice-ka koowaad iyo choice-ka labaad jaamacadda halkaan aad ku qoraysaa. waa 14 safxadood ama 14 page. hubi inaad si taxadar leh u buuxisid oo waxyaabaha lagaaga baahan yahay oo dhan meesha aad gelisid, xogahaagi, background-kaagi, khibradaadii, luqadahaagi, wax kasta oo scholarship-kan ku weydiinaya inaad xagga gelisid. kadibna aad hubisid inaad u dirtid emailka isna meeshaan ku xusano. emailkan ayaad u diraysaa .gov-ka uu dambeeyo. waa tahay scholarshipka labaad waxaa iska kaashanaya hay'adda FAO iyo dowladda Hungary. FAO sida aad wada garanaysaan waa Food and Agriculture Organization oo ah hay'ad hoos timaada UN-ka. barnaamijkan waa fully funded, isna sida waa minxa taam ah. waxaana loogu talagalay dadka doonaya inay dhigtaan masters. aynu u guda galno marka waxyaaba la iska rabo. waxaa hoos garaynaya ama scholarshipkan lagu qaadanayaa jaamacadda Hungarian University of Agriculture and Life Sciences oo ku taala Budapest. waxyaabaha uu scholarshipkan ka caawinayo waxaa kamid inuu application fee iyo tuition fee lacagihii jaamacadda kaaga baxay ay ka cover gareeyaan ama ay ka dabaraan. accommodation oo deegaankii ah
waxyaabaha kugu baxo dheeriga iyo health insurance-na uu la socdo oo aad ka faa'iidinaysid. wadamada marka loo ogol yahay inay scholarship-kan xareeyaan listigooda xaggaan ku qoran yahay. haddii aad sii fiirisid waxaa arkaysaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada ka faa'iideysan karaya scholarship-kan. scholarship-kan dadka xareyn kara waa inuu 30 ka yaraada, waa inuu wadamada midkood ka yimaado sida Soomaaliya, waa inuu haysto qofka English language proficiency inuu ama shahaado muujinayso inuu qofkan English fiican ku hadli karayo ama uu academic-gaas la jaan qaadi karayo, inuu qofku caafimaad qabo, inuu qofku qof dhiiran yahay oo barnaamijkan ka faa'iideysan karaya, inuu haysto achievements ama guulo ka gaaray iskuuladiisii ama waxbarashadiisii hore. sida loo xareynay marka how to apply, waxa xareynaysa application form baa jira oo isna buuxinaysid oo aad ka helayso website-ka rasmiga ah. inaad marka waxa hubisaa sidoo kale aad dokumentiyada taageeraya yani scholarship-kaaga iyagana meeshaas gelisid ama aad ku xustid, inaad application-ka si taxadar leh aad u xareysid, kadibna application-ka oo aad saxiixday oo aad dhamaystirtay oo dokumentiyadii kale la socdaan sida shahaadooyinkii iyo waxyaabihii kale ama referenceski aad u diraysid emailka xagga ka muuqda. ugu dambeyntii marka FAO ayaa screening ku sameynaysa ama iyada marka hore akhrinaysa gacanta koowaad, kadib ay wasaaradda beeraha u gudbinaysaa Hungary, taasna waxay isu gudbinaysaa jaamacadda ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqaysa dadka scholarship-ka helay iyo dadka aan helin. waxyaabaha dokumentiyada laga rabana waxa weeye application form-ka aan sheegnay, inaad diblomadii soo gudbisid ama college diplomadii maadaama master yahay, degree-ga yani heerka koowaad ee jaamacadda, language proficiency waa muhiim, dhowr jeer bay xuseen inuu qofku English shahaadooyin English uu la yimaado, inuu haysto warqad references ama recommendation oo dadka uu la soo shaqeeyay ama jaamacadda wax u dhigay ay u soo qoraan recommendation statement of purpose oo iyaduna la mid ah letter of intent, waa qofku sababta uu xareynay scholarship-kan, inuu health certificate haysto, shahaado ama warqad dhakhtar uu soo qoray inuu qofkan caafimaad qabo, iyo mid kale booliska laga soo qoranayo ah inuu qofkan wax dambiga gelin oo qof discipline leeyahay. application-ka deadline-kiisu waa February 28. official link-igana haddaad sii furtid FAO ayaad helaysaa, waa kana FAO website-keeda ayaad ku arkaysaa scholarship-ka oo waxyaabahan hadda ka sheekayna dhan meesha ku qoran yihiin. waxyaabahan soo akhrinayba halkan ku yaala, marka waxaa ka helaysaa email-ladii iyo meelihii wax lagu dirayay sidii loo application form-kii aan inii sheegay waa kana isagaa soo download garaynaysaa, buuxinaysaa dokumentiyada dhan isku dubaridaysaa, kadibna email-kaas ayaa u diraysaa. runtii aad bay u sahlan tahay, waa very straightforward. waxaanan ku dhiirigelinayaa dadka barta waxyaabahan la xiriira agriculture-ka oo kale, beeraha iyo life sciences-ka iyo sustainability-ga inay xareeyaan scholarship-kan laana UN-ka ama hay'adda FAO khaasatan barnaamijyada noocaas ayay maalgelisaa. marka haddii aad background noocaas leedahay, scholarship-kan adiga lagugu talagalay ka faa'iideyso. scholarship number 3 isagana waxa iska kaashanaya Japan iyo World Bank. master way isaguna sidoo kale waana scholarship minxa dhammaystiran. wadamadan ayaana lagu qaadanayaa koorsooyinka oo ma aha hal wadan lagu qaadan maayo scholarship, runtii waxa weeye ballaaran oo aad dad badan ay uga faa'iideystaan. Mareykanka, Afrika, Japan, Oceania, Europe, jaamacado ku kala yaala wadamadaas ama goboladaas ayaa lagu dhiganayaa barnaamijka. World Bank Group fangareynaya 2 sano barnaamij soconaya. marka barnaamij mar xoogaa professional weeye. waxyaaba ka faa'iideysanaysid waxaa kamid ah tigidyadii baa laga bixinayaa $500 oo travelka iyo la siinaya qofka, tuition fee oo jaamacadda lacagteedii baa laga bixinayaa, insurance health insurance baa ku jira, iyo lacag bil lagu siinaysa isaga dabirtid cuntada iyo deegaanka iyo buugta iyo waxyaabahaas. marka scholarship-kan yaa xareyn kara World Bank listed countries baa xareyn kara, listigaasna halkan ku qoray. haddaa fiirisid hoos aad raadisid Soomaaliya oo ka helaysaa, waa inakana way ku jirtaa Soomaaliya. marka wadamada waliba aad ku dhaqaalahooda u hooseeya ama soo karaya ama less developed countries-ka ayaa loogu talagalay barnaamijkan. inuusan ahayn qof laba dhalasho haysta, waa inaadan u shaqayn World Bank Group, waa inaadan u shaqayn, waa inaadan relative dhow la ahayn qof u shaqeeya World Bank, degree waa inaad haysatid, waa inaad 3 sano ugu yaraan ay ka soo wareegtay markii aad heerka koowaad jaamacadda dhamaysay. marka waa inuu qofku leeyahay ugu yaraan 3 sano work experience ah. marka runtii muhiim weeye qaybtan work experience aad muhiim u tahay. haddaa hoos u sii dhaqaaqno sida loo xareeyo halkan iyagana way ka sharaxayaan.
online baa laga xareynayaa through World Bank official website oo aan dhawaan isagana ila tusi doono. waa inaad dokumentiyada support garaynaya xareyntaada aad iyagana soo gudbisid luqadda Englishka haday ku qoreen ama programkaaga luqadda aad ku qaadatay. waa inaad laba recommendation haysatid ama laba references kuwaas oo ka yimaaday macallimiintaadii jaamacadda ama dadka aad la soo shaqaysay. waa inaad si taxadar leh u xareysid adigoo waxyaabihii lagaga baahnayo dhan aad soo gudbinaysid. marka xaggan iyadana waa muhiim oo selection criteria haddaad sii fiirisid waxyaabaha dadka lagu doorto 30% waa professional experience. marka meeshan waxaa ku tusaa in scholarshipkan ay raadinayaan dad soo shaqeeyo khibrad shaqo leh. 30% halkaas ka imanaysa. 30% waa recommendationskaaga ama referenceska lagu soo qoray macallimiinta ama dadka la soo shaqeeyay ku soo qoreen. quality of commitment iyo qofka applicationkaaga laga dheehanaya dabcan qofku inta uu wadankiisa ka gargareynaya ama uu doonayo wadankiisa inuu wax ka bedelo. iyadana 30 baa culays la eg baa criteria lagu dooranay kamid tahay. 10ka u dambeeyana waxa way backgroundka. marka backgroundka runtii aad education backgroundkaaga aad muhiim u yahay. waxa ka sii muhiimsan hadaa fiirisid 90kan dhibcood waa tahay dokumentiyada la iska rabana waa degree aan sheegnay hore baan qaybtooda u sheegnay work experience and letter of admission and recommendation letters formkii aad soo buuxisay caafimaad warqad caafimaad iyo valid passport ama ID card kala hadii aad haysatid. waxa uu xirmayaa scholarshipkan wajigiisa koowaad waxa uu xirmayaa February 28. second application baa jira laakiin kan ba si xaray 28 xirmaya. website-ka rasmiga ee World Bank hadda u timaadid waa kana Joint Japan iyo World Bank waa kana kan weeye. xaggan ayaad runtii ka helaysaa xogta oo si faahfaahsan who can apply. wadamada xareyn karana waa inay sheegno Soomaaliya waa ku jirtaa. shuruudihii xaggan ay ku qoran yihiin deadline-kii waxyaabo laga rabay website-yadii meelihii aad si xarxareynayso dhan xaggan ayaa xogtiyo dhameystiran aad ka helaysaa. linkigan isna hadii lahayd waxaan inay dhigayaa hoos qaybta description-ka video-ga. waa tahay scholarship-ka afraad waa scholarship aad wada garanaysaan Turkiye scholarships and Turkey scholarships. fully funded waa manxas iyaduna taama oo sanad kasta furmato bisha koowaad dhamaadkeeda ilaa bisha labaad dhamaadkeeda. Turkey Buslari iyadu waxa ay cover gareysaa ama ay bixisaa scholarship 3 level heerka sare ee jaamacadda koowaadka labaad iyo saddexaad ee PhD ba. scholarshipkan oo Turkiga lagu qaato dawladda Turkiga fan gareyso ayaa sida halkaan ka muuqata sanadadiisu ay sidaas u kala qaybsamaan. qofku luqad u baranaya sanad koowaad kadibna programkiisa ayuu sii badanaya. barnaamij ay dawladdu ka caawinayso inaad jaamacadda bilaash ku dhigatid deganaansho ay ku siinayaan jeeb gelis ay siinayaan ardayga oo lacag halka ka muuqda ay kala helayaan sida ay levelada u kala duwan yihiin. kadibna qofku uu helayo tigid uu ku imanayo Turkiga iyo marka uu laabanayaba. scholarshipkan dadka xareynaya waxa weeye waa waddanada dhan baa loo ogolyahay marka laga yimaado dadka Turkida ah. marka Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada sanad kasta uu Turkigu siiyo scholarship. runtii barnaamijkan sanadkii hore ayaan si qoto dheer oo faahfaahsan u sharaxay marka hadda ku dheeraan mayo. waxa aan linkiga kor idinka muuqda aad ka daawan kartaa barnaamijkaas sida loo xareeyo waxyaabaha la iska rabo shuruudaha la iska rabo iyo sida aad ku kobcin kartid chances-kaaga inaad ku guuleysatid. marka muuqaalkaas hubi inaad daawatid. scholarshipkan waa scholarship-yada iyaguna Soomaalida u furan ee sanad kasta ay number badan Soomaaliya qaataan. waxa uu xirmayaa bisha February 20keeda. haddii aad website-ka rasmiga u baahan tahay ama website-ka Turkiye Buslari ay ku qoran tahay ama Turkiye scholarships hadda Google ku qortid waa aad helaysaa. marka maadaama uu scholarship-ku hadda furan yahay si sahlan ayaad ku heli karaysaa meelihii laga xareyn jiray iyo waxyaabihii laga rabay oo dhan. sidoo kale internetka ama sida YouTube-ka ayaa waxaad ka helaysaa 100 qof oo luqado kala duwan ku sharaxaya sida process-ka loo maro sida loo xareeyo ilaa bilow ilaa dhamaad. waa tahay mudanayaal iyo marwooyin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa 4 scholarship ee u waaweyn ee dhammaantood bilaashka ama fully funded ama minxada ah ee bisha tan February furan. si aysan ku dhaafin bilaha soo socda March, April iyo kuwa ka dambeeyaba hubi inaad gambaleelka furatid subscribe dhahdid. waxaan kaloo kaa codsanayaa in aad muuqaalkan la sii wadaagtid walaalaha kale ee Soomaaliyeed ee u baahan fursadahan. waa Yusuf Shiro oo idin leh ilaa kulanti dambe oo xiiso leh. isma dhaafin. assalaamu calaykum.